wiilkii in laisku meeriyo xafladan maadaama aad kasoo qaybgasheen anigoo awalba ku faraxsanaa haddana aad baan ugu sii farxay فرحداً أمانت هلينا ولا أكبر هير كان أمانت جارسي سنة أديك جارسي فرحدا أمانت هلينا ماذا حاجة أيام كل هلين وحنا أمانت جار وحنا شخص استماع معنا ما له وحصلنا واحد من ضمن حتى أنا وحنا فاهمي صارت قاشان لهم مقالة لو سو بدلي معنا صدق يودع أنا معنا اسمر يودع وأنا فاهمين مقالة قاشان لهم وحنا لو سو بدلي قلت كهرية العقاب تسينا هذا مرسيه أكبر أكثر ويلا دع ورياضة محسوب سام إيش قطني قص دق ولا أكبر ولا أكبر ما يمكن أنا هذا وقتي أنا ما يصير صديق ولا أكبر ورياض ما يصير صديق هاي علم وهو من كربلاء ملك الدنيا مفهوم وحلا غاب كرمله لا تكذب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أنت يجلس أجرك ما معنا استوى حنخسان يوضحي أنا إيشك ما شو هذا أنا راضينا أنا سؤالنا يا ذا إيشك قابل ماشي جرى خوفنا هذا كم سؤالين كان اسوي واحد ينسخ بحي وادخل كاك السحر واي كامني أنا وان أوجي أم سنانتا سؤال أيا كنت بقوله سؤال شنو حكى وان أوجي حتى أنا واحد كفكر يسا ولا الأكبر حتى ذا لو قلت هذا أنا كنت أنت حدي أي أنا جيود إلى هاين أنا كنا وان دمال لها بس كامني وحنا كل شيء جا نلاش نسير أنا تهاي قط كذا مركو حالات ده هنا وحوى دوكاهري ماذا هنا تتجالنتو مر هنا تتجالنتو وقت جا مرنا inaad la dagaalanto duruufa marka wax walba waa inaad diyaar u lahaataan intaad nooshahay wax walba waad arkaysaa waa qaldan tahay ninkaygii aniga sidaas uma fikiro ee waxaan ka fikirooyaa wiilkayga yar haddii weynaado waddada xun ayuu raacayaa taasna mustaqbalkiisa ayaa ku baaba'aya ani marra wiilkayga mustaqbalkiisa inuu dhamaato hadalkii khafiifi adiga kursiga waxaad ka dhaxashay akbar wiilkayga haddii weynaado kursigaada wuu kaa dhaxlaaya marka ma arki kara aniga wiilkaygoo lagu tilmaamaya dambiile ama wiilkaygo cabsi ku nool aniga taas maaha mid aan u dul qaadan karo nolosha cabsida aan ku noolnahay mid la fiican maahan wiilkayga nolosha inuu ku noolaado aniga diyaaru miyi mana kaa yeelaaye adiga sideed ku fikirtay kursigayga inuu dhaxlayo wiilkayga waad qaldan tahay adiga
wiilkayga hadduu weynaado wuxuu noqonayaa nin daacad ahoo dalkiisa iyo dadkiisa daacad u ah sidaan aniga hore u ahaan jiray marka wiilkayga waxaanu rajeynaa nolol fiican adiga wiilkeena mustaqbalkiisa adigoo ka fikiraya macquul ma tahay waddadan hadda ku socotid inaad ka leexatid ma laga yaabaa taas ninkayga maya suurtagal maa sababto ah hore iyo gadaal midig iyo badax dhan walba waxaa kaa jooga malag marka waddadan tuuganimada ah qofki ma raaca inuu kasoo laabto iska daayay gadaal xataa uma soo jeesan karo waddadan qofkii raacana noloshiisa inta ka dhiman orod ayuu ku dhamaysanaya annagana waan ku dhamaysanaynaa warka runtiisa dinku siiya daadaan ninkaas akbar la dhahaayo waa aaminsanaay adoogiis camal soo haystay maadaama as ogaado inaad adiga gulaan gushini waxaan ku sheegaa inaad xawdaada ka hadda baladka iskaga bax dhegeyso bambay ma ku dhuuma kartid kuma qaadayso marka waxaa lagaa doonayaa faransa in aad u baxdid hana moodan cabsi darteed in magaalada kaaga fogeynayo ganacsigan aan hayno sidiisa wuxuu yahay maskax ku isticmaal haddii kale waad ku baaba'aysaa haddana waa kanaa tikidkaad soco waa tahay dilaysaa waxaadna doonaysaa adduunya kusii noolato midaas mid ku suurtagelaysaa soo soco hallo waa yaswant walaal oo walaalkaada shabeel badbaadi walaal xaggee ka soo hadlaysaa walaal xag soo hadla yaswanti hadalkayga si fiican u dhegeyso walaalkaaga nolol iyo geeri ayuu u dhexeeyaa si fiican hadalkayga ugu maqlo dhegeyso hadalkan hadal lagu kabtaba maa maxaad ka rabtaa walaalkay maxaad u xiratay ii sheeg maxaad u xiranaysaa walaalkay war walaalkaa nafsadiisa haddii aad doonaysid 10 daqiiq gudaheeda waa inaad ku timaadaa villadeeda haddii aad ku maan weyso waxaad ogaataa walaalkaaga horta inaan u dheeraynayo walaal maxaa kugu dhacay ya maxaa kugu dhacay kaa taagantaa walaalkan shabeel ayaa waxaa afduntay raada dakuur galabtaan gambashaal ala dhaafakii gambada kursi camal aan ugu fadhiisaa ala guulaan galo kuwa raada dakuur aw walaalkay xageegiis walaalkaa shabeel ayaa ku baashaalay meydkiisana qoryahaas ay dul saaran yihiin xaggaa fiiri walaalkii walaal aniga waana dareemi karaa qalbigiina hadda holaca ka shidan balse saaxiibkayga madna walaalkayga ahaa akbar markii walaalkiina uu dilayay anigaba sidan oo kale ayaanu ogey runtii akbar sidaan u aaminsanaa qofaan aaminsanaa ma jiro akbarna wuxuu ahaa waalidkayga kale waalidkayga qofka dilana dunidan inuu ku socdo lagama yaabo aniga marka hore waxaan ku fikiray meydka walaalkiina inaan qabto kadibna aan duurka ku tuuro markaas ay cunaan xayawaanada balse haddana hortiina waxaan ugu gubayaa si aad u ogaataan walaalkiina inaan anigu dilay oo aan ugu arguday waalidkayga walaalkiina inaan dilo haddana gacanteeda aan ku gubo suurtagal maaha ee walaalkiina meydkiisa hoo guba
labadiina oo ooyayo intaadan bixina waxaa idin sheegayaa magaaladan inay lamid tahay duur aniguna aan ahay libaaxii duurka iga dheeraada labadiina haddii aad doonaysaan duurkan inaad kusii noolaataan waxaad barataan sida libaaxa dad cunka loogu nacamleeyo haddii kale nolosha ayaad ku khamaaraysaan labadiinaba waa iga digniin saaxiibayaal waan ka xuma walaalkiin geerida ku timiday balse waxaan idin weydiinayaa ninkaas marka walaalkiin oo dilay maxaad booliska u soo dacweeyey maxaan faa'iido heli lahayn booliska kaba soo qaad waan ku soo dacweynay asigana waa la soo qabtay waa la xiray kabacdina maxkamadda ayaa soo deynaysa cadayni markhaati u baahan tahay balse anaga haddii xataa aan noqono cadayni markhaati maxkamadda manageedas mana aaminayso waa sax hadalkayga aniga sawey juufta waaye warkiisa daadaa lama naandari waa darsadii waxaa dardara leysrawaan shalay maanta laan waa ogtahay walaalkiina yaraay waa caka cateey darini idinkasna gafagafiha maalinta ku xigtana waxaan ku dhaari karaa cidiina dhan maaragtay inaas gulaangulay haddii kale alaga gaarto waa qaldan tahay annaga maaha dadku gulaanguli karo wari ay dhegayso kaas wuxuu ismoodayaa libaax laakiin bisad weeye bisad annaga agteena bisad ayuu ka yahay laakiin mar dhow waxaan ku tusayaa inaan madankiisa aan marsiino war annaga sideennaba walaalkan tacsidiisa la dhigin maayo sababtoo ah tacsi in wax la qala la rabaa halkood dibi hasugi waayin isagaa la biraynayaa ballan waxaan ku qaaday siduu igu baabiiyey xafladda siduu igu fadeexaystay waa in si kadan loogu fadeexeeyaa hilibkiisa waa in muqmad loo jaraa cayn hadba cayn waa in loo kala jaraa ballan wey taas awoodda ciidada booliiska leeyihin buu ilowsan yahay laakiin ballan waa tusaya hubhawe abalonga lingalanka kule joogtaa cabsaninga anaa gadaashaada jira wax gulangula gaashaanle vikas chaudhry haye dilka shabeelow maad igu xiraysa aniga sidaas maad u jimay maya sidaas ma iman anugu waxaan kuugu imid inaan kuu digo mid aan kuu sheego burcadnimadii tuugadaad magaalada ku hayso mid soconaya maaha maxaad samaynaysaa haddaan kugu helo in yaroo caddayna waxaa ballan ku qaaday inaan sheelka gudaha kuu turo magacaagana baabiya adigii meeshaan ka timid adigoo dhulka jooga ayaad doonaysaa samadda inaad soo taabto soo maaha waryaa beentiis bini aadan ayaad tahay bini aadannimadaada ha iloobin haddii kale waxbaad isu arkaysaa waktigaa inoo kala sheegaya waxaan hayaa hata waryaa vikas chaudhry waktiga ha ka hadlin waktiga wax walba uu qaban lahaa hadda wuu qabtay waad aragtaan shalay waxaan ahaa maantana waxaan ahay sharciga cadaaladda maxkamadaha wasiirada intaba aniga i hoos yimaadaan mogtahay basterio sheemaya kuwa kala naqna gulangula aniga inaa xirto iska daaye adiga waxaad raadsataa sidaad ku badbaadaya sababtoo ah waa aniga qofka kaa soo bedelay gobolka kuna keenay magaaladan aad joogtaa vikas chaudhry adiga sharci ayaad iila dhaqantay balse aniga sharci inaan kula dhaqmo lagama yaabo adiguna sidaad isku badbaadinayd isbadbaada ayaan ku leeyahay aniga kaa hari maayo waxaan mar walba kuu daba taaganaya sida hooskaaga oo kale maraman ku qayilaa kan waa digniin uu bixiyey daada daakur malka haye meeshan maxaad iigu ballamisay haddiiba aad ballanteeda tixgelisay oo meesha kugu ballamiye aad timid waxaa cad inaad aad ii jeceshahay lakshmi adigana iska qiro inaad i jeceshahay wax badan aniga meeshaan ma sii joogaayo dantaada waad ii sheegan kartaa diyoon ii sheeg korkan aad u tacabitamanaysa waan ogaa inaadan ku faraxsanayn anigana inaad jeceshahay waan hubaa aniga xataa waan ku jeclahay lakshmi waxaana rabaa inaan ku guursado lama filaan muu jacaylku ugu qabtay aniga waxaan ahay gabadhi jecel mustaqbalkeeda aad ka fakari weysay maxay tahay jacaylka aad sheegaysid aniga dhaawacaad ii geysatay ma iloobaay marnaba lagama yaabo inaan hilmaamo waan ogahay jacaylka dhabta ah ma dhammaado mana nici kartid laakiin niyadaada ka saar aniga inaad i guursatid marnaba lagama yaabo middaas aniga iyo adiga waktiga ayaana kala geeyey lagama yaabo intaan waktiga la dirido inaan xaggaaga u soo gudbo nin daweel haysta dawaa loogu daraa darsade adduunka waxaa layidhi mukulaala ugu tuugsi badan ilaa kadhimata nyaaw nyaaw
yawlay ku jiray kana farfayt oo qaadid gabartii aniga aan guursalahay ashaweystii inas guursa ee gunay goofkan intis gagaw ma waan siino kan waa la banay badoli oo jecel kale amal way wariya jecel hadii rabtid inaad baratid waabta wardiglaytak xasan yeeshantu wata ku bara jecel ninkaas khatar ku warka qabto علي ما كان اسمع اسمع بوان كان قاعد كنت له ما والله متكان يدي وحير يدي ما بقى فايا بد سفي انا قولان قولها هالو ها waxa kula hadlaya waa DK Matur oo Matur ii waran waa soo xasuustay maanta waxaan ku sheegaa wiilkayga Vivek inuu san adduunyada ku nooleen uu dhintay ya waliba si naxariis darro ayaa loo dilay wiilkayga Vivek abow telefonka yaa kuu soo diray ma ila hadashid maxaa kugu dhacay yalla gulaan guli baar xunaan ku hayaa Vivek ayaa si naxariis darro loo dilay mudane aad baan ugu xumahay geerida wiilkaaga ku timid balse aniga waxaan ku balan qaadaya dadka wiilkaaga dilay inaan dhaafin un dilo adigase waxaad ii sheegtaa wiilkaaga daday cadow ahaayeen ay iska soo horjeedeen yaa gulaangol ii sheeg anaa baabiinayo aniga shalay waxaan maqlay wiilkayga inay sagaaleen gaashaanle vishaal wiilkiisa waana is afgaareen wuxuuna ku dhaartay inuu gacantiisa ku dilayo marka cid kale wiilkayga cadow lamaha asagaa dilay ninkaasaa wiilkayga dila aniga waxna kuma samayn karo awood aan wax uga qaadana malihi maxaan sameeya marka tolbeelay shaqeeya mashaar weyn okay is aragti dambe oo xiisa leh goodbye aragti aku nawdo tani waa ku salaam maxaa lacayna waa wada qadimantiina maxaa helay taliya ani igu xumaanin waajibaadka sharciga anoo gudahay waxaan rabaa igaarka inaan xiro naqruq aan xira waa maxaa xirayso maxaa sababa wiilkii muxuu meel ku xiraya igaarkaaga Matur igaarkiis Vivek asgafagafay ya Vivek ma dhintay siyaasa Amerikaankaas ana ilkeenina kuleeyahay taliya aniga qofna ma dilin Vivek maxay tahay dadku qasbaysan dilo gacan ku dhigna ma cadeynay adigu maxaa cadeynaysaa taliya horta cadeen waa lahaaya igaarkaaga waa goodihay markiis goodihayne dad badan meesha joogan nin goodine wax gafagafaha taliya marka iga raali ah taliya igaarkaaga waxaan rabaa inaan xiro sharcigana waa dhigan inaan la xiro maya aniga gacan ku dhigna ma taliya ya taliya iga raali ah ruuxan talay ku soo waxa dib haween loogu sameeyay maxaa musantahay usheeg wiilka inuusa dambiil ahayn oo wax dambiil uusa gelin والله دقيقة سامو لكن وقت حاضر كان وانا عسكري واجب في سكتي ويمكن احسي وانا كاين maya عسكري هوش هذا والله واسكو ما تنسى هوش هذا مرحبا طليع صوتك من دقيق العرب كورونا غير انا اسال كل شيء صعب way fiicnaa sharciga inuu ku qabto sababtoo ah sharciga hadduu ku qaban lahayn aniga ma ii badbaadin waan ku dili lahaa wadada ayaan kugu dili lahaa mogtahay adiga ma hadalkayga aaminta aniga Vivek ma dilin gacan ku dhigna ma أنا waxaan rabaa wiilkayga inuu gacan ku dhiglay weligiis wax la dilin waa inaan rabaayad leh wiilkaaga waxaa ku ran dambiga u galay ciqaabtiisa in lagu qaado maxkamad dawladda haddii ay soo dayso waxaad ogaataa daadataa kor maxkamadiisa inay sii dayneen oo mid kaliya ay ku xukumayso midaas ah wiilka ogasho horey saddex ayaad u qabtay haddana labadan ku darso
saanaan lafaan ku ahay horta wax lisweydii maxamed waxaan ni weydiiyaa idinka daadaan leeba cadow isku aheedane maatuur igaarkiisa maxaana turuq loo sii alin sheega betana iga wareersan oo ilaa hadda aan fahmine igaarkaas sifeega wuxuu ahaa daadaa walaashisa ninka guursan raba marka sidaas daraaddeed guurka ka hor anaga waaba u qubaynaba ninkii waa cunno waa cunno saasna ideh annaga waxaan rabnaa ninkaas gurigiisa xasin mooye farxad inayna ka dhicin laakiin adiga midaan ku weydiinayaa waa inaad iga dhaadhicisaa wiilka gaashaanlaha difaag ma dilinayn maxaad u xirta adiga bal midaas ii sheeg maxaad ka wada adiga jooko kontra jooko weligaa ma maqashay aniga waxaan rabi daadaa inaasba ku fikirin ama aljijirinin ninkii dili walaashiisa ninkii guursi lahay laakiin maalintiis ogaado aniga inaan nabturuq sii igaarkaas waxaa ogaahaysiin hawdayn inaan la kicinayo sheekada hadda bacbutulug lay joogtaa hadhow laakiin kibackulul way tegleed hadda waxaa waaye maadaama ninkaas ana turuq aan sii fasta inaan subino waay oon raaxaysanon baashaalno sheekadan abaloonga linga langa fuul waay ubabalinga kacabsan adiga wiilkaaga anigaa soo daynaya waa maasanta okay oo hemi waa daadaataa kur qof kula hadlayo oh mudan haye waan hortay hadda baan toosii hor caafimaadka soo fiicna maxadan ii sheeg bal bishaal Chaudhry wuxuu doonayaa wiilkiisa in loo badbaadiyo adiga kiiskaas waxaad shaqo ku leedahay habeenka ma jirto waayahay aniga wogta waa tahay amarkaaga jira mudana see waay hadalkaagaa diidi karaaday adiga nin khatar baa tahay wakaagaa jiraan ku yidhi ha u bixin aniga waa halataas okay maadanad duqa adiga lixda hore shan u bedel runtii waa kuxumaa kiiska wax kama qaban karo yaa war maxaa baasaan bedelaa waxaan kala bedelmaya waxa soo dhigi iga ogolaada maaha ila arrinka waan ka ogolaada laakiin xagee halkan ka yimid xagee lagaga soo warramay haddii aan fiish kiiskan waa kiis adag markaa runtii wax laga qaban kara ma laha si aad abukaato kasto oo aad adiga xaggiisa aadidna ha u malayn kiiskan inuu wax ka qaban karo marka waxaad tagta adiga ninka yidhahda daadaa tahakuur ninkas wax ka qaban kara yaa qof kale oo wax ka qabanaysa habeeraa tahay kiiska ma jirto ninkaas ayaa magaaladan kala socodsiiya war ka qaxla lagu yidhahda sorry saaxiib sheekadan anigaa fahmay daadaa daakuur ayaa ka dambeeya waxaan oo dhan waayo wuxuu ka faa'iidaystay figaas iyo wiilkaaga dagaalkoodii marka figaas ayuu dilay kabacdina wiilkaaga ayuu dembiga dusha ka saaray sidaa darteed wiilkaaga waa dembile hay waa ka faa'iidaystay soo ma taliya ma go-an haddii kula gafa igaraan aho amar dawla mudiicaan yiri ninkii diidana dabaal nin gaawana dabaalnimo ma kuroona aniga shaxuura iga timid waa xiriile ma ahe dhegeyso sidii nin dhiiglaan ku dhacdo subarmuuta loo sheega khamradaas ku daldale hadda waxayna laga baahan yahay waa daadata kuur in la dilo oo loo qubay dhammaantiis dhiigas geli soo la dili maayo ha waa in la dilaa nacadkaa xun ee dable aniga gurigeyga ka hoos qalaaba jiray maantana amarku taagnaan ii keenay waa in la dilaa in la dila mooya dawo kale malaha ma waa fiicnay ba aniga maalmahan dawlo waa in la dilaa qarmuunkaan laga qarmuunsanayn anigu dawlo libaax weyn sii ka dhigayso maaha inaan libaax bisaabu uusa ogeyn تاكل ميه يعني بدك تتاكل معاه وتاكل ميه تاكل دوي تاكل جديد صبح طلع شيء رجل ما كسيس انا بقر هيدي كويس كان سكي علي على وقتها انا يعني قبل تاعي وما انا كي غيرك ما حكوك قلت لي ساعه طلب انا قلت له ما انا قلت له تاج الصبح وريانا كني وقرب ما كنت جوكتي ما تقول قديوسا اتقول هذا سايشك حديد قديس كان جوجي واسمع تقايسا وكوكولانغولا ما يا جاكس نقطة يفعل هذه تاكورو بالله وحن كو قاضي إن أنا كنت هذيك وإنك تلينك إنك كي قالوا ده ستاي بالله وحن كو قاضي ما ساعد شوفين قوة بس تامركي قول يوم إنها مدولة أنا قد جالسة سماها وكان سكي على تانها تعرف وريد جيس wiilkaaga dambi ayuu galay go'aankeedana maxkamadda ayuu u yeelaa tan labaad aan ku sheegaya dhegeys adigu waxaad ogaataa haddii aan doono aniga inaan hadda go'aankaa gaari karo waxba gurigaya ku qalqeelayn aniga kuu sheegayo halkii aan ku leeyahay noloshaada anigaa go'aanka gaaraya hadda ha moodin si raaxa leh inaan nafta kaaga qaadayo ama aan kuu dilayo waxaad ogaataa noloshaada inaan silac gelinayo sidaan kuu silcinayan heer waxaad gaaraysaa aad adigu naftaada leedahay
rajagso ninkaan neeftiisa dhibaysay adigoon wax dhaabac u geysan waa adiga dheertay adiga iiga bax kaale kaale soo gadoon si galweynow soo gadoonaan ku yidhi kaale nijaasi haddii kale waa ku gulan taniya ya bente ma lamadan beri dhan mishaariya ugu yar ma dhamin murugtaada haysa laakiin maxaan qaban karaa sharcigaba waxaa soo tagaa dadka maalka qabaan aniga mid baan kuu sheegayaa wiilkayga yarka hadduu taataakuur uu wax ka yeelo ballan waxaan ku qaadin intaan dharkan wato ya awooddu wayga xadxadata laakiin dharkan baan tuurayaa taataakuurna keligiisaba cadcad baan u jarayaa sida badhamada shaarka laisugu tolo kala soo tagaya jooka kundoobi jookaan la yidhi adoo sharci isticmaalin taataakuur waan gafagafay kartaan ku yidhi sidee xabsiga waxaa ku jira ninkii khatarka ahay grevis gargum ninkii la dhahay war grevis gargum rigoora mana cunaayaan kule daadaa waxa le maa bulsiyooni naftaa laga qaadaa nafta si kale ugu fakeena male good idea fikradalkeed adogaaga haddaad si toos ugu tagi weydo oga cadgoosan weydo waxaa looga cadgoostaa adoo maskax isticmaalay maskax baan ka dhigaya gabigiisaba halo indar hooyadiis ayaa kula hadlaysa gabadheedii haye hadal eedo aniga maanta waxaan tegey saldhigga ciidanka wiilkayga ayaan la soo kulmay wiilkayga wuxuu u baahan yahay inuu adiga kula kulmo haddii ay macquul tahay hal mar wiilkayga u tagaa kula kulmeen haye telefoonka ee kuu soo dirin indar hooyadiis maxaa ku tiri kadib indar ayaa ii baahan adiga maxaa tiri markaas aniga ma aqaani si aan dhaho idigeysa lashmiye adiga indar weli waad jeceshahay inaad la kulantidna waa muhiim marka aniga hadda waxaan ku dhihi lahaa hal mar orodoo la kulan waa jeceylkaaga ninkaas waan ogahay lakshmiye in anigaad fikrad khaldan iga aaminsan tahay oo aad moodid inaan adiga jaceylka kaaga baxay oo aan ahay nin ballan iyo axdi aan lahayn balse hadda waxaa lagu qasban yahay runta inaan kuu sheego aniga sababtii aan beenta kuugu sheego waxay ahayd aabbay cagajugleyntiisa ayaan ka cabsaday waxa igu cagajugleeyey haddii aanan kaa helin inuu adiga ku dilaayo marka saas darteed ayaan been kuugu sheegay oon ku iri kuma jecli laakiin waxaad ogaataa noloshayda adigay kaa bilaabataa adigayna kugu dhammaataa qofaan adiga ahaynna ma raba inuu mustaqbalkayga noqdo waxaan kaloon kuu sheegaya aniga viveeg ma dilin adiga ayaan kugu dhaartay aniga gacan ku dhiigla maahay aamin amaba ha aaminin lakshmi intaas ayaan kugu yeertay waa mahadsantahay waana fasaxanta haddii aad doonto waad bixi kartaa